waayo hawlaha noo socdo oo de ma doonayno in muxuu ahaayeen wax naga bishqiriraan ma doonayno intay hawluhu la gudadegayo ay midho dhalayaan ujeedada hadalkan u qaatana waxaydun inaan tafsiir khaldan laga bixin uuqashadayada aan halkan ku nibadnay aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat sharaf bay noo tahay inuu yimaado cali wuxuu sheegay in 1993 markii shirkii Somaliland halkan lagu hayay ay ugu dambeysay Boorama marka maanta waajib bay ahayd inuu yimaado oo soo arko maadaama Hargeysa dhowr jeer yimid inuu iskuulkii uu wax ka dhiga jireen soo arko bal inuu arkana reerkan xulufka ay ahaayeen bal sida ay uga faa'iideysteen inta Somaliland jirtay inuu soo eego maanta annaguna aan ku soo dhaweyno sharaf iyo siyaadey noo tahay waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waan soo dhaweynaynaa waxaan jecelnahay inaanu noqon safarkii ugu horeeyay uguna dambeeyay uu noqdonkii bilowgii insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu in badan isaga iyo waftigiisuba ay nagu soo noqdaan baan filanaa oo rajaynaynaa kaftanku uu jiray uu sheegay Cabdilaahiyo annaga kaftanayo waxay nagu yiraahdeen war maxaad noogu mar uu noo tuslaadin waxaan aragteen eed qarsateen de waan u jawaabno waxaan ilmaanu qarsanay ilaa la saanood meel walba idigu nimado garaad Saleebaan iyo garaad Cabdiqani iyo garaadadii oo dhan ugaaskii Allah u naxariisto bariir u dhintay Suldaan Saciid inta waanu saragnay waanu u sheegnay laakiin meel yar oo kala ku xidhnaadeen baan oo wali dhagihiina u raaricay wali xagga taa kalena waanu dhamayn doonaa hadii la yiraahdo waxaan ballan qaadnaa inaan martiqaad anu halkan ugu fidino ay ballan la arkaan hawsha taala de iskaashina anu iska kaashina hawlaha taana waan hadii la yiraahdo ku soo dhaweynaa mar labaad baan leeyahay soo dhawaada waftiga idinma soo dhaweynaa waa magaaladiinii baad timaadeen imika waxa weeye waan igala soo qayb galay aad iyo aadna runtii waan ugu faraxsanahay hadii la yiraahdo inaan maanta caaw kala halkan aan isku nimaadno aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad ba sida professorku uu sheegay iyo Suna Ibrahim Jaamac Samatar ku soo dhawaada ayaan leenahay waana dhulkeeni runtii oo anagoo dhalan baabade xilliga aad joogteen iyo xilliga wax ka qabanaysay baa runtii aad u badan tahay waxa kale aad ku jirtaa runtii inuu wada hadalkii socdo waa run wada hadalku waa socdaa waxaan rajaynaynaa sida odayaasha horeba u sheegeen inuu noqdo mid muddo dhala hadii la yiraahdo oo ummaddu ay goosato hadii la yiraahdo oo cid kasta oo wax ku leh ma garanaysaa inay wixiga ay si qiimo leh ay u heshaan runtii aad iyo aad u rajaynaynaa aadna aan ugu faraxsanahay runtii aadna aan u soo dhaweynaynaa runtii waa run waddanka runtii waddan wada leeyahay oo waddankaas hoodamaha leh oo waddanka magac maalinta aan la baxnay dee la garanayo waana waddan in dad badan ay wada leeyihiin runtii in ay si mug iyo miisaan loogu wada tashadaan wax wada shaana runtii waa mid aad iyo aad runtii aan u soo dhaweynayno oo haddaan odayaasha naga laftooda dhinaca siyaasiyiin ka nahayo dhinacayga waan xagayga waan haysanaa waxa weeye aad baan runtii aan u soo dhaweynaynaa lagana hordhici maayo waxaan se rajaynaynaa runtii inay halkeegan hal walba halkay lahayd ay ka fariisato ayaan rajaynaynaa cidii gacanta wax ku haysana dhulka dhigto cidii gacantoodu maran tahay wixiga ay gacanta ku dhigtaan aad iyo aad runtii aan rajaynaynaa aan ku boorinaa runtii anagu haddaan nahay galbeedka professor madaxweyne waan tabaynaayo meesha dabayl badan baa naga haysata naga gudoomiyaha Faysal iyo ragga la socday wasiirka dhaqanka ka fadhiyo waxa weeye cid lay ka heleen cidladana anaguna galbeed ma joogsan war bari ma u jeesatay marka waxa weeye in la iskaga yimaado oo arinta halkeega la dhigo gacanta loo geliyana runtii waxa weeye waa mid aad iyo aad runtii aan inagu soo dhaweeyno intay sadee aynu meelaha yar feeraarsanay inagu hawlahana nimankan waa iska wadanaya oo sidoodii hawlahan nimankan u wadanayaan oo dacilay runtii ay ka helayaan waa run waan gurmanaa oo waxa weeye haddaan duqeyda meelo badan baan tagnaa oo rabadaan tan kale hore waxaan joogay laascaanood baan joogay waqtigii hore qoladii buu hodlay meeyaga la joogtay baan heshiis baan ka dhacay
waxaan horta aad iyo aad u soo dhaweynayaa heshiiskii qiimaha la halka ka dhacay qoladan aan ku jiray bariga dhaweyd oo diiwaangelinta iga reebtay aad iyo aad baan runtii aan ugu bogaadinayaa culimadii iyo salaadiintii iyo xukuumaddii wasiirka arrimaha guud hogaaminayay arrinta qiimaha leh ee dadkii walaalaha ahaa dhibtu dhex taallay halka maanta ku soo afjarantay iyo duqeyda yeeshay iyo dadka shacbiga ah ee ku taageeray aad iyo aad baan runtii aan u soo dhaweynaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inay magaranaysaa hawsha iyada sida ay magaranaysaa hawl taaba gashay u noqotaan ayaan rajaynaynaa waxa weeye baryahanba waynu sugaynay dhagahaa taagan meel walba waa laynaga sugayaa walaxaa ku wada xidhan meesha wadahadalkiina walaxaa ku wada xidhan walaxaan yaa la raajini aad anu hadalkaaga socon maayo walaxaani yaan la raajin waa in hawsha magaranaysaa runtii alxamdulilah dee somaliland ahaan hadda halkay maraysa dhaqaaqa iyo umuurteena waynu wada arkaynaa waan ku faraxsannahay waxa weeye waan lagu garab gelayaa halkan waxaa wasiirka hadalkiisa ku jirtay cabdilaahi hadli maayo hebelna hadli maayo annagaa u hadalnay taasi ma noqonayso halkan adigoo fadhiyo sawirkaaga joogo walaalahay waan yani waa inoo ballan dambe waa inoo mahad dambe mooyaane halkan inaad duuduub kaga noqotaa suurtagal ilama aha aad iyo aad baan hadal siyaasi ma jiro aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad baan qiimo badan maanta inoogu fadhidaa aad baan shucuur badan iyo wanaag badan u dareemaynaa waxa weeye runtii qodobka hadhay oo islaamraaja waanu gurman jirnay waan tegi jirnay laakiin qodobka odhanaya waxa weeyaan nimankeenii reer fulaanow waa USB hadalka ka dhowrimay carabka han heble iskugu nimaadno waxaa tabaysaan ka wada hadalno way dhinayd haddii aan dhaqanka nahayna qaybteeda waan ka qaadan doonaa haddii la yidhaahdo aad iyo aad baan nin salaamayna horeba way sheegeen waan ku faraxsanahay wafdiga cali qaleef hogaaminayo ee wasiiradu la socdaan malaa wala hareeriyaha laga joogaayo halka laga waa dhowrayo intuuna dambiyeed oo biyo dhigin hadalkaad ka ilaalinaysan u baleynayaa in la yar jeexjeexo oo halku joogo intaana gunta la gaarin bee dushal nooga taataabtay aad baan u danaynaynaa waxaan u danaynaynaa waxa beeshani Soomaaliyeed kolka la eego waa laba caar iyo calool qolada caloosha dhexda ma ahina labadii caaranay inuu caaradii kala soo booqdo oo bal waxay ku jirto hubiyo khalifaadii aad ugu maadsanay waan ku dhaweynaynaa oo ku soo noqdo mar hadday tahay caaradii kale soo caarada kale joogay inta dhexduna caloosha ay tahay oo aaminsannahay inta caloosho inay wali de labadii caaro hayad hadlayaan qaar aad u farataagaya iyo qaar hoosta ka guuxayo le kuwa yar guulweynaya iyo kuwa ka guuxaya iyo kuwa iska aamusano waradooda barafsalka caruurtiina u ururiyay nabadgelyadeena saynoo danahan deysano leh kolka xaqiiq laga hadlan ku sheegay oo la sii doxdohay arinta waxa weeye in la turxaan bixiyo oo taa lagu horeeyo la baaro la socdo inta isla la xasilayana waan ku faraxsanahay kolka run laga hadlo waxaan salaa faysal duuda odagii deergigii bariga dhaxeeda filad xabiib loo jiray haduu noqdo inuu wada gaaray hayd inuu bariga ku horeeyeen sababta galbeed buu bahay galbeedo maxaa jira halkan inuu baaraheed malaha soo socda taasina way dambeyn doontaa insha Allah haduu ilaahayna gaarsiyo guntana waan gaari doonaa kolkay taas dhamaato midna salaadiinta ka dhawaajisay warayso dhaqan ahaan inaan saragno oon shir isku imanno oo aad ragani waar bahalkay handhigne miisan wada fadhiisan la yiraahdo waa laga maarmaan qabaano kolka run laga hadlo waa laga maarmaan taasina oo la fagoro dawaysa dambeey waa doontaa waana ku faraxsanahay waanan de ballan qaadina inaan shirkaana aan qaybteeda ka qaadano annaguna saragno oo ka qaadano aad baan ugu faraxsanahay assalaamu calaykum inagu de waxbaynu ku heshiinay waxaan ku heshiinay lixdankii in Soomaali isku keeno shanta Soomaali doono ka bilowna inagoo Soomaali ku darsamina nasiib daro ay dhacday ay ma suurta gelin fikrad fiican bay laakiin waqtigeed lama joogin 39 haddana 19 tala la keenay ala go'aansaday inaynu saaji ku tirina la soo noqono xubnimadii waxba inaga qaldama waxaan ku dhamaysanaa wada hadal wada shoor iyo wada tashi laakiin inaynu xabad isku qaadna xaraan bayna boqol wada inoo furo wixii naga qaldan aan ku samaysan karnaa arinta hadda wadnada insha Allah taala inagu ma kala bixi karno waxaan wasalta kaliya hadda Soomaaliya lagu tagay inagoo midaysan ayaanu qiimo leenahay
haddaynu gaarkeena ku adkaysanayn oo gaarkeenaaso oo cadaalad waxayna ku samaysan ayaan ku qarinay laakiin ugu marna xuduud ma kala yeelan karno subxaana wa tacaala Soomaaliya hadda kala yeelatay way isqoomaynaysaa qolba 3 kun oo ciidan loo sameynaya waa si aanay madaxba u kala qaadayo ya waa tala shisheeye tala Soomaaliyeed maaha iyadana waxaan jecelahay shaarat inay hagaagto oo duceyna laakiin hagaageedu inaga ku xidhantay hortagtayna inuu adkayno midnimada soo celino waxaanu harsan hadda la ilaa sanaag bari galbeedka dawaalka nabad ka soo bilaabantay hadda wax dhabanaya waan yara taaban doona insha Allah ayuu meeshii ugu sii bilowday waxaan jecelahay inagoo midaysano subxaana wa tacaala family baynahay familygeenu waxayna hagaajisanaynaa inaynu gobasha dhulka dhigno waxayna intii aan jirnay wixii naga qaldamay oo aragnay hagaajisano dastuurkeena wanaajisano wixii aan raali ku nahay Soomaaliya cusub aan wada leenahay aan dib u abuurna jecel insha Allah taala taasaan ka shaqeynaa insha Allah taala taasaan qof kasta uga baahanahay in isku nimaadno marka ayaduna soo duceeya amba USB ha ku soo duceeya amba Soomaaliya waa ducada walaadiin baahan yahay يا إن شاء الله سام USB هذا سوء عشان ده قلنا ده حسان وش بابا كده قال هذا الموت أذكر ولا في حمد إن شاء الله تعالى لو ما سنت راح أكون دوينه يا بروفيسور لama ya dee salaadiin iyo ugaasyo iyaaba ee amray haddii la yidhi cabdilaahi baa yidhi hadalku dadka qaar buu eeg yahay inta kalena ama ha iska aamusto ama ha ducayso anigu ducadan markaa isku soo koobaya runtii aad farxad weyn bay ii tahay aniga iyo qolyaha reer Khaatume magaalada Boorama yimi sababtaan u nimay ugu weyn runtii waxay ahayd Amuud inaan soo arko qolyahan aanu wada soconana dee warka Amuud hore in badan nooga maqleen bal inay iyada lafteeda ay bal arkaan waxaan u malaynayaa Amuud markaanimi هذا اللي حدا سنة بكودوده أنا السلابان حوجا وانا إسور ورسناي رجي هبل يهبل رجي واحد من مدينة دمادين هذا الصفقة أنا حق النجمة بحكته أنا جابا ككوة الله سهله كل هذا بان بالدرامي عمودي بورما أنت يسوتشران ما أنت أنو بابور كتيره وقت بدن بان سي سocon laakiin waxaan xusuustaa annaga oo jimca ka nimaadna Amuud oo nidhaahna shaahan ka soo cabno qadadiina aanu ka gaadhno iskuulkii intay meeshu masaafadu tahay hadda maanta baan badareemay waxaan aad iyo aad ugu farxay runtii transformation ka ama isbedelka weyn ee ku dhacay jaamacadaas muddadii hadda 20 sano ugu dambeeyay inaku sagaaradu xagga toilet training ka waa inaga fiicnayd oo waxaynuba ku naanaysnaa sagaaradu waxaan qarsoomayn bay qarisaa hadda kaadideedii iyo saaladeedii bay qarisay inana intay noqotominaynu ka dhaqaaqna sagaaradu iyada bay inaga horeysay inaku dhibaatooyinkeena iyo siyaasadda iyo haday tahay waxaan iska jecelahay in la iska kaftamo oo in bahasha taabu ay noqoto aan laga hadlino daawana Cabdilaahi baaba ay xukumay oo yiri meeshan kama hadlaysid laakiin dee waxa suldaanmadii iyo fatwa halka ka soo baxay odayaashiiba fatwa keeno waxa yiraahdeen ma waa inaanu maqalaa ma fatwadana waa ku mahadsantihiin arrimo ay ku haboonta inaan lagu hordegina way jiraan magaalada Boorame runtii uma aanan iman arrimo guud ama siyaasadeed inaanu doodahaas oo kale aan ka qayb galno debahashana warbal qolyahana disdiina reeshiikh saxa qolyihiinan dirka wooqooyi aniga waxay dhibtay hartiga wooqooyi iyo dadan shuqul lahayn oo waayadaaba la isku rakibay bal idinkuna dhadhamiyo oo dirka wooqooyiyo waxa
waxaan rabaa war bal qolyahan aad wada dhalateen hadidinina haddaanu wax wada bilownay haddaad tustaan iminka waxaa isu booday USB war waxaanba ka baqanaynaa xoogaagii aan dhoobdhoobaynaba in lagu kala tage war bal noo kaadiya bal bahasha noo kaadiya yaa oo bal intaad qolyahanna kalsooni siin lahaydeen iyo war xitaa bahashanu hadday la wada leeyahay aan hoosta ka xariiqo haddii la wada leeyahay war cidina cid kale marti uma noqonayso cidina cid kale magan uma noqonayso wixii la wada leeyahay hadda danta haddaan cadaaladi jirin haddii la dhaliilo marba waxa jira oo uu xaq yahay dee inaan nin aadan carab la odhan jiray oo reer buu hodlaayo gabayaaha ayaa isla markiiba 60kiiba dowladnimadii markaynu helay wuu ka soo booday wuxuu arkay dowladnimadii sidii uu rabay iyo filayay inayn ahayn kullay baytul qasiidka ugu weyn waxaan aanu ka qabtay inuu leeyahay maashiyo haddaan mililka saro malow miyay fuuli ma mucaarad baan ahay haddaan xaqa ku maansoodo meeduun gabayga ka horreyso sidii baan manjaha ugu socdaa modernidii hadalka uu ku soogay bal muxuu macneeyay tira ministerkan doortay dawladda aan dhisay iyo wasiirka aan dhisay bal macnaha aan ka helay haddaan weli meelkan maqaar baan ku seexdaa oo manjahan sidii ugu socdaa oo wixiiba wax noloshaydii ka bedelani ma muuqdo daba armay inoogu badinaysaa bahasha in lagu dhiirado oo dee si fiicanna looga wada hadlo cidina ayan Soomaalidu ay tiraahdaa nin hulaab xuni inuu wax qarsanayaa la moodaa war waxa qolyahan reer Sheekh Saxaaq idinkuna marna aad wuxula wadaan ee aad xulafo ku tihiin haddana bal annakoo markii horeba xoogaa walwalanahay haddaanu idinka qayla idinka maqallo war anaga qudhadayada waxa odhanaynaa war kuway sahaayeenba hadday naf ku haysa idinka qudhadiin arma wax idin yaalaaba ayin jir bal hadallo u baahan iyo doodo u baahan waxaan kaga bogsoonayaa bal arrintan inaan la yidhi IT uu ku fiican yahay oo ninka waxaanu aragnay in loo baahan yahay oo gabadh baaba la siiyey war bal waa war fiicane haddiiba arrintu halkan ay marayso waxba la isla waayay maayo 93 na waaba xusuustaa waaga ma aqaano ragga cid inay ka joogtay shirkaas laakiin waaga qudhadeeda soo dhaweyn badan runtii waa dareemaynay ragga hore wax badanba kama noola waxaan u malaynayaa aw daahir xaaji xasan ragga hore ragga hore ee joogay runtii waagaasna meel bay ahayd 93 war waxaan cidina la murmi karaynin war nabadaan ku wada noolaano war wixii inoo dana aan gooyaha ka wada joogno aan yeelo haddii nabadda hadda reer Booramow hadda yeelsanina hadda annaba warka waa haynaa magaaladan Boorame 4 dawladood baa ka dhisan hadda Soomaaliland warkeeda waa haynaa hadda Djibouti-na inkastoo xoogaa xurgufi jirto Djibouti-na dad ka dambeeya oo dawladda Djibouti xaggeeda marba jaleecayana waa ognahay hadda aw barana waatan oo xaggan iyo kelinka hadda warkooda yana waa haynaa hadda idinkuma bayara xagga iyo xamar marka aqliga aad idinku annaga waxaaba na wareerisay Puntland iyo Somaliland waa laba hadda labaanu la ciirciirayna war idinku afar haddiiba aad hesheen aad kulmiseen oo caqli aad magaaladiina iyo dhulkiina ku dhisataan oo jaamacadan arkay ku dhisataan oo haddana nin walba intiis al xirsoorta magaalada ma jooga
mise xamar buu jira cali xaaji xirsi warayran markaanu xamartaa wada joognayna waa jiraan calaa ayi xaal waxaan un jeclaan lahaa waxaan aad iyo aad idinku mahadinayaa soo dhoweyntan dhabta idinka muuqata wafdigan aanu la soconnay annaku wasaarad kasta ma aanan raadsanna wasaaradda waxbarashada yaanu isnidhi iyadaa ugu furfuranoo ardayda waxaa la barayaa 20 sano 40 sano noloshooda loo diyaarinaya bal wasaaradeedii hadday hawshan idinla wadaan arma furfurshaan iyo open mindedness iyo maskax furan iyo ka tuhum baan u bidnay waana ku mahadsan yihiin labadoodanaba guddida 7 ah yay ku jiraan dowr fiicanna ay ku leeyihiin kulley saaxiibkay Faysal dee xisbina xirana meel buu ka ootay haddana isagoo qudhadiisa caqli buu la yimi isagoo u cidaho xisbigaas oo waliba doorasho la isu diyaarinayo haddana arrin guud oo Somaliland inuu runtii dowrka ugu firfircoon oo ku yeesho waana ku mahadinayaa waana ogahay marmarka qaarkood hawlo uu qabsan lahaa inay hawshan ka mashquuliso marka bal odayaashiinana ragga badidiisa de barasho wanaagsan waxaanu malaynayaa odayaasha inta halka joogta aniga Saleebaan baa gidigood ka wada weyn annagaaba qirayna caawa runtaanu iska sheegaynaa barasho wanaagsan ya marka warooy nin Soomaali ah oo 70 gaadhay ama ka gudbay wuxuu bada u diiday anigu garan maayo laakiin warar fiican oo kala aad ba sheegaynaysaano haddii qofku dadaal la yimaado ismuujiyo Cabdilaaha ka warramay haddii beerta aad reerka aad la gashay amaashada oo haddii aad dibiga bahashan ilaa tractors iyo ma jiraan aad hawsha gashay hawl sahlanna maaha haddaad ka soo baxdid ilaa qofku waa la imtixaanayaa de markaas aad mudanaysaa in gabadh lagu siiyo dhul lagu siiyo warbal war fiican baa la sheegay hadduu xeerkaas noqonayo rag badan baa dhiiranayay taana waaba soo dhaweynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa ballana annagu haddaan khaatumanahay wixii Somaliland la wada leeyahay lagu dhisi lahaa oo cidina ayan marti ka ahayn oo shuruuc iyo dastuur iyo wax qaybsi lagu wada raaliyahay haddii lagu hiranayo 100% ka mid baanu nahay annana intaas baanu qabnaa taasaan rabnaa bahasha in la dedeje ma fiicna haddaan mas'uuliyad la iska saarin oo nin door hadda haweenkaaba xagga doorka inoogu fiicane cid mas'uula oo hawshaa leh oo hawl maalmeedkooda ay noqoto haddaan lagu dhiiran hadda waqtigii iyo dhacdooyinka waa inaga dheeraynaya ramadaan baan ku jirnaa hadda waa dhow doorashaaba la gelayaa allahu yaclam bal doorasho ka bacdi yaa nool yaa dowladda yaa wax badan calaamad su'aal badan baa meesha jirta haddana in wixii de aan la dedejin oo waxaan berri ka maalin degaa hore waaga anigu arday baanu ahayn aniyo Saleebaan calanka markii laga annaku sheekh baan joognay laga taagay 26kiina laga taagay kowdii Julayna laga taagay xaadir baanu ahayn marka cidii tiraaha warbal haloo kaadiyo war wax shuruud ah hadda shuruud wax gooniya nasiya maaha war wax shuruud ah oo aan xasuuq iyo sharci la'aan iyo inkastoo xukumi la tir markii dambe yimi laakiin waxaa in laga bogto oo khibradda hore Karl Marx baa wuxuu oran jiray bil Ramadaan in Karl Marx la xuso ma fiicna waaba dambi
Karl Marx waa ninkii shuuciyada bilaabay yaa wuxuu odhan jiray ummadda ama dadka aan taariikhdooda meelaha ay dhibaatooyinka iyo gafafka waaweyn ay ka galeen ciddaan ka faa'iidaysan ilaahayna wuxuu ku ciqaabaa inay haddana sidii ugu soo noqdaan oo gafafkii hore iyo dhibaatooyinkii hore ay ka faa'iidaysan haddana ay dib ugu soo noqdaan waray bahasha cagtana ha loo dhigo bal annakana xitaa haddiina lagu dhiirinayo war xagga sharciga iyo xagga dastuurka iyo xagga maaragtay hadda tii Maraykanka iyo Ingiriiska ma uun ahaa in halkana laga alooso laakiin mid aynu ina ku leenahay oo Soomaalinimadeena ah oo dimuqraadiya ah oo qofka Soomaaligu ku qanacayo oo aan marba ku xidhnayn ciddii meesha madax ka ah laakiin wax cid walba khasab ku ah war taasaan u baahana taana inaynu meel uga soo wada jeesano oo cidina war cid rabta in la xasuuqo ama la xidho oo isaga qofkaas uusan dambi lahayn ama wixii benefits ee ummadii ay leedahay inaan la kala xigsan taa ciddii hadda tira ama dedejiya hadda berri ka maalin hadda karis xun iyana wax kula karis xun iyana wax kula wixii inay noqoto waray waxaa la wada leeyahay sida ugu habboon aynu u samaysan karnana inaan u samaysano aan u bislayno laakiin haddana dee wax inoo oolaya ma aha ashu in marna loo dhiifoonaado la dedejiyo laakiin haddana aan degdegaasu keenin in la ilduufo sidii uun caqliga iyo raganimada iyo maskaxda ummaddu ay leedahay fardina ma aha waxaan maskaxduna waa inteennana uun la isku daray dee suxuurtii baa midhay dhowaatay wixii kolley jaamacadii waxbaan ka dhigi jiray oo aniga Saleebaan iyo haddaan hadalkana laga qaban oo la odhan war ka bax waan hadda waa ilaa suxuurta oo iska wadi karnaa waa iska dhaqaaqin oo isaga iloobin waa mahadsantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin waxaana inoo ballana si allaale si waxa aynu wada leenahay inoogu hagaagi lahaayeen inaynu meel uga soo wada jeesano naga taasaan noo ballan aad iyo aadna u mahadsantiin